السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما خيرتكم حنا channelkeena Axmed Daaruqni ku soo dhawaada muuqaal cusub. Qudus waa magaalo qadiimi ah, waana magaalo dad badan ay sheegteen inay leeyihiin. Furashadii ugu horeysay Qudus waxaa furtay ciidamadii uu hogaaminayay Abu Ubayda ibn Jarrah. Saxaabadii kadib waxaa hadana qaatay Roomankii, maxaa yeelay muslimiintu waa ay iskala qaybsheen, awoodoodiina waa ay daciiftay. Roomanku waxay Qudus haysteen sanado ilaa laga soo gaaray qarnigii 6 ee Hijriga, waxaana xilligaas saaxadda dagaalka ku soo biiray Salaaxudiin al-Ayyubi oo ahaa weeraryahan u dagaalamay diintiisii. Salaaxudiin waxa uu adkeysan waayay dhibkii ay muslimiintu ku jireen iyo madaxdii xilka haysay oo gaalada gacmaha hoos dhiganaysa. Salaaxudiin markuu xilka la wareegay waxa uu bilaabay inuu la dagaalamo Roomankii qabsaday dhammaan dhulkii Shaam, waxa uuna bilaabay inuu magaalo la wareego, waxaana uu caansanaa dagaaladiisii dagaalkii Xitiin ee uu ku jabiyay Roomanka ciidamadoodii ugu badnaa. Salaaxudiin waxa uu ku guuleystay furashada Shaam oo dhan ilaa Qudus amaba Jerusalem ma ahane. Salaaxudiin waxa uu bilaabay inuu u diyaar garoobo hadafkiisii ugu weynaa nolosha oo ahaa furashada Qudus. 15 Rajab ilaa 20 Salaaxudiin al-Ayyubi iyo ciidamadiisii waxay joogeen banaanka magaalada Qudus, waxayna raadinayeen meesha ugu fiican ay kaga qaban karaan go'doomin. maalintii 20aad waxay heleen meesha ugu fiican ay kaga qaban karaan, waxayna go'doomiyeen magaaladii Qudus 6 maalmood. 26 Rajab sanadii 583 Hijriga waxaa soo baxay kuwii maamulayay magaalada Qudus, waxayna la yimaadeen shuruudo. Salaaxudiin ayaa u sheegay in arrintaas uu mar hore u soo bandhigay balse ay diideen, haddana uu magaaladii isaga leeyahay. balse kuwii kale ayaa waxay ugu jawaabeen inay dili doonaan 5,000 ee muslimiinta ay ku nool Qudus, sidoo kalena ay burburin doonaan masjidka. Salaaxudiin al-Ayyubi waxa uu dhihi karay si fudud, sameeya arrinkaas, annagana hadhow ayaan sidoo kale burburin doonaa, sidoo kalena dili doonaa dhammaan ciidamadiina iyo dadkiina. balse Salaaxudiin waxa uu ka fikiray dadkii intaasoo sano ku jiray dhibka iyo rafaadka ay gaaladu ku hayeen. ma rabin in dhiig ku daato, waxa uuna aqbalay shuruudii, waxauna la wareegay dhulkii saddexaad ee ugu muhiimsanaa muslimiinta. 4 jeer ka badan ayaa la furtay Qudus qabsasho dabadeed. inta badan waxaa ka dambeeyay munaafiqiinka fikiraya dhalaalka adduunka. haddaba markii gaaladii Yurub maqashay Qudus ayaa leedinka qabsaday, boobkii ugu weynaa muruga darteed ayuu la dhintay. midkii ka dambeeyay ayaa u diray boqoradii waraaqo isagoo leh soo dira qof walba oo dagaalami kara. boqorkii Jarmalka kaligiis ayaa soo diray 1 milyan oo dagaalyahan, balse qadar alla darteed intuu wadada ku soo jiray ayuu biyo ku harqaday, waa una dhintay, ciidankiisana waa ay kala firdhadeen. boqorkii Ingiriiska iyo kii Faransiiska waxay soo direen 600,000 oo dagaalyahan. Salaaxudiin waxa uu warqado u diray madaxdii muslimiinta, balse cidna uma soo jawaabin. 600,000 ee ciidankii Faransiiska iyo Ingiriiska waxay degeen meel aan ka fogeyn Qudus, waxayna ka samaysteen dhufaysyo. waxa uu Salaaxudiin joogay xerada dagaalka 2 sano oo dhammaystiran, waxauna Alle ka baryay jiray inuu siiyo guusha. aqbalad xagga Alle ka timid, waxay gaaladii codsadeen xabad joojin, waa uuna ka aqbalay. hadalladii ugu waaweynaa ee ay gaaladu ka dhaxaan Salaaxudiin al-Ayyubi waxaa ka mid ah, inta uu joogo Qudus nin Salaaxudiin oo kale ah qaadan kara maysaan Qudus. waxaan filayaa inaan waxaan kaga faa'iideeyay mowduuceennii maantay ee taariikhdii ama dhacdooyinkii la hilmaamay qaybtii 4aad. inta uu kulmi doono muuqaalkan la mid ah wax idinkaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.